halkan waa degmo ka mid ah degmooyinka dowladdeegaanka Soomaalida ee Itoobiya waana degmada Tili-Guleed oo ka mid ah degmooyinka ugu faaca weyn ugu taariikhda iyo xasuusaha ballaaran degmada Tili-Guleed ayaa waxa lagu xasuustaa inay tahay goobtii uu ku noolaa amaba soo ka kicitimi jiray halyeygii weynaa ee Axmed Gure oo dhamaanteen aad wada garanaysaan heerka uu ka gaaray halgankii geeska halkan waxay la hadda si rasmi ugu nool waa beel ka mid ah beelaha ku abtirsada Axmed Gure waana beel ka mid ah qabaa'ilada Daarood Ismaaciil waana beesha Gari Kombe ilaa hadda waxa la sheegay in ku sii yaalaan guriyihii uu deganaa Allahu naxariistay Axmed Gure kuwaas oo ilaa hadda ku sii yaala degmadan ayaa waxa si joogto ah loo keenaa ama saddex xiis loo keenaa hadba madaxda ka timaada heer federaal iyo heer caalami goobtan ayaa waxa dhawaan soo gaaray qoraaga weyn ee geeska Afrika oo wada taqaana Faysal Cabdi Roble ayaa dhulkan oo dhanca ku soo wada maray misana la soo dalxiisay isagoo aad iyo aad ula dhacay misana aad ula ashqaraaray habka wax soo saarka iyo bilicda dhulka markii uu arkay sidoo kale waxa iyadna lagu soo dhaweeyay gabadha lagu magacaabo Nasri Sahal Ibrahim oo kamid ah waqtiga ay kamid ka ahayd baarlamaanka dalka Kenya Nasri Sahal ayaa iyadna sidoo kale goobahan oo dhan la soo wada mariyay iyo waliba goobo kale oo taariikhi ah waxa isaguna si joogto ah mar walba u yimaada madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isaga oo aad iyo aad u bogaadiya amabase u dhiirigeliya bulshooyinka halka ku nool isagoo mar walba ku dhiirigeliya in halka ka sii wadaan wax soo saarkooda waxa isaguna dhawaajib ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed misana goobta lagu marti qaaday lagu casuumay Dr. Abiy Ahmed ayaa markuu arkay aad iyo aad ula shaqaraaray heerka wax soo saarka dhulkan ayaa wuxuu caan ku yahay wax soo saarka sida hay'adda qamadiga sarreenka galeyda iyo waliba hadhuurka Abiy Ahmed ayaa aad iyo aad u bogaadiyay bulshooyinka ku dhaqan dhulkan inay wax soo saarkooda ay aad u kobciyaan degmada Tili-Guleed waxa lagu xasuustaa waqtigii uu Shiinaha iyo India ay gaajadu laysay waa goobtii looga daabulay amaba se laga taakuleeyay sidoo kale degmada Tili-Guleed ayaa ah isha ugu wanaagsan ee dhaqaalaha dowladdeegaanka Soomaalida marka la yiraahdo goobta ugu wanaagsan ee dhaqaaluhu ka soo galo waa tido oo idin Come on,